waxa uu ahaa weerar argixisada al-shabaab ay ku doonayeen in ay ku qaarijiyaan taliyahani Samaha Salaad madaxweynaha Galmudug Qorqor iyo mas'uuliyiin kale oo halkaas ka sugnaa. Haddaba sideeba u dhacay weerarka Laasgacme ee gobolka Mudug? Xogo iyo macluumaad dheeraad ah oo soo kordhaya mas'uuliyiinta ku dhaawacantay ayaan idin haynaa ee soo dhawaada. Daawada fadlan haddaad nagu cusubtaan nagu soo biir muuqaalka share garay si dad badan u gaaro mahadsanid. Kooxda argixisada al-shabaab ayaa saaka waxa ay ku qaadeen weerar gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ah deegaanka lagu magacaabo Laasgacme oo ku yaala gobolka Mudug. Waxa uu 9 kiiloomitir oo kaliya u jira Bacadweyne, halkaas oo qorshaha uu ahaa in weerar culus ay ku qaadaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka. Waxaana weerarkaas la doonayay in lagu qabsado al-shabaab looga saaro. hase ahaatee al-shabaab ayaa deegaanka Laasgacme oo weerarkan laga abaabulayay waxa ay ku soo qaadeen weerarkan qaraxa ah. inkastoo qaraxa laga hortagay oo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay fashiliyeen, haddana waxa uu geystay qasaare soo gaaray mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. gaariga laga soo buuxiyay walxaha qarxa sida caadada ahayd al-shabaab afaafka hore amaba gaariga qaybtiisa hore waxa ay ka soo dhigeen mid aan rasaasto karin. hase yeeshee ciidanka dowladda oo dadaal xoogan ku bixiyay oo rasaas badan la dhacay gaariga ayaa ugu dambeyn ku guuleystay in ay qarxiyaan ka hor inta aanu gaarin bartilmaameedkii loogu talagalay. hase ahaatee qaraxa xooggiisa waxaa la xaqiijiyay in uu ku soo dumay gurigii ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. Qorqor waxa soo gaaray dhaawac fudud, sidoo kalena waxa halkaas ku dhaawacmay xildhibaan Dhabancad iyo sidoo kale Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Qorqor waxa uu hadda joogaa Wasil, halkaas oo markii waxyeelada ay soo gaartay loo sii qaaday, inkastoo dhaawiciisa uu fudud yahay. sidoo kalena waxa xoogo dhaawacooda uu yara culus yahay Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo sidoo kale xildhibaan Dhabancad, maadaama jug culus ay soo gaartay oo guriga uu ku soo dumay. sababtu waxay tahay dhismayaasha halkaas ku yaalay uma aanay adkeysan karin xoogga qaraxa halkaas ka dhacay. al-shabaab ujeedkoodu waxa uu ahaa in qaraxan ay si toos ah ula bartilmaameedsadaan goobta ay ku sugan yihiin mas'uuliyiintan aan kor ku soo xusay ama aan soo sheegay iyo ciidanka dowladda federaalka. hase ahaatee ciidanka difaaca ku jiray ayaa ka hortagay gaarigan. sidoo kale ujeedka al-shabaab waxa uu ahaa in halkaasi ay ku qaarijiyaan taliyahani Samaha Salaad iyo mas'uuliyiinta kale. Samaha Salaad shalay warbaahinta waxa ay tabiyeen in uu ku sugan yahay deegaankan, isla markaana uu hogaaminayo ciidan tiro badan oo la doonayo inay gacanta ku dhigaan Bacadweyne. hase ahaatee sida ay wax u doonayeen uma aanay dhicin, lamana xaqiijin taliyaha Salaad inuu halkaasi ku sugnaa iyo in kale. madaxweynaha Galmudug iyo mas'uuliyiin kale oo dowladda dhexe ah waxa ay wadeen qorshayaal badan oo la doonayo in gacanta loogu dhigo deegaanada Mudug iyo Galgaduud ama Galmudug ay kaga sugan yihiin argixisada al-shabaab. deegaano dhowr ah ayaa tageen oo iyaga ayaa hogaaminaya ciidamada howlgalka fulinaya. al-shabaab waxay isku dayayaan in howlgal walba iyaga ka dhana in ay jidka u galaan ama ay ka hortagaan ugu yaraan. hase yeeshee weerarka maanta ay soo qaadeen waxa uu noqday mid ay ku fashilmeen. xaaladoodu waxa ay tahay mid aad u degan, iyadoo la filayo saacadaha soo aadan warbaahinta in loo soo bandhigo sida ay wax u dhaceen. daawad maxay kula taariikhdaada qaybta soo commentiga inoo gura bixi ku soo kordhay dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa insha Allah. muuqaalka share gareeya oo la wadaaga saaxiibadiin.